xalay ma ahayn habeen ay wanaagsaneed hoggaanka sare ee maamulka galmudug kadib markii magaalada Balambal ee gobolka Galgaduud ay la wareegeen ciidamo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. ciidankan ayaa isku dayay inay degmada Balambal ee gobolka Galgaduud ka qoraan ciidamo loo tababarayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA si halkaasi ciidamo dheeraad ah hay'addu ay u hesho, balse hoggaanka sare ee galmudug oo aan waxba ka ogeyn tillaabooyinka NISA ay qaadayso ayaa arrintan aad uga biyadiiday. macluumaadka aynu helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo deegaanka safar uga maqan uu amray mas'uuliyiinta kale ee galmudug ee ku sugan deegaanka inay hor istaag ku sameeyaan ciidamada NISA ay ka qoranayso magaalada Balambal ee gobolka Galgaduud. gudoomiyaha maamulka degmada Balambal iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel oo mas'uuliyadda arrintan loo xilsaaray sidii kiiskaasi ay u xallin lahaayeen ayaa iyagu isku dayay inay arbushaad ama qalalaase ku xalliyaan xaaladda ka taagan degmada Balambal ee gobolka Galgaduud, waxaana arrintaasi ay sababtay in dadka deegaanku ay hubkooda qaataan. xalayna muddo daqiiqada ah uu dagaal ka dhaco degmada Balambal ee gobolka Galgaduud. haddaba gudoomiye ku-xigeenka degmada Balambal oo xalay saqdi dhexe warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilligaas sababaha uu warbaahinta ula hadlay ay tahay in dagaal toosa uu ka socdo degmada Balambal. in xilligan la joogo ay ka dhacayso xabadii degmada Balamballe, arrintaasna ay sabab u tahay ciidamada nabad sugidda ee taliyaha nabad sugidda uu ku soo daabulay degmada. ciidamadan waa ciidamadii la wareegay yoonkii shalay xaruntii degmada ilaa iyo hadeertaana ku jira, ayna ku arursanayaan ciidamo aanana magacooda iyo macnahooda aanan garanayn. arrintaas iyada ah qalqal bay ku abuurtay magaalada. xilligan la joogana xaafado ka mida waxaa ka dhacaya qoryo waaweyn oo la isku adeegsanayo oo ciidamada nabad sugiddu ay u adeegsanayaan dadka masaakiinta ah iyo dadka deegaankaba. ciidamadan tababarka la doonayo in loogu sameeyo galmudug isla markaasna laga qorayo deegaanada galmudug ayaa waxaa la sheegay inay taa aragti ka timid agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagu la sheegay inuu doonayo inuu qabto hoggaanka sare ee galmudug, balse tallaabooyinka agaasimaha NISA uu ka sameynayo deegaanada galmudug ayaa ah kuwa uusan ku qancin hogaamiyaha hadda galmudug maamula oo Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaana safarkiisii deegaanka uga soo tagay u muuqataa in uu tallaabooyin culculus oo hoos u dhigaya arrimihiisa sababay kadib markii uu ku soo fashilmay in dowladda federaalka Soomaaliya uu ka aqbalo in muddaxileedkiisa ama aan raahday in doorasho aysan ogeyn uu qabto iyo in sidoo kale dowladda uu uga dambeeyo arrimaha dibadda, taas oo keentay in qorqor inta badan siyaasiyiinta ka soo horjeediya dowladda mas'uuliyiinta taageera intaba ay qaadaan tallaabooyin uusan ku qancin. wixii waray arrimahaasi ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa. fadlan boggan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir, la wadaag saaxiibadaada kale macluumaadka halkan aynu ku baahino si had iyo jeer ay u helaan.